daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films oo aad uga barateen taariikhda aktarada caanka ah ee Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. barnaamijka waxaynu ku falanqayn doonaa jilaaga caanka ah ee Brahmanandam Kaniganti. jilaaga aan rabno inaan wax ka taabano taariikhdiisa waa jilaaga lagu magacaabo Brahmanandam Kaniganti oo ay Soomaalidu u taqaano leefleefow. daawada jilaa walba waxa uu lagu xasuustaa taariikh u gaar ah, balse jilaagan waa uu ka duwan yahay kuwii aan horay uga soo sheekaynay. waa maxay sababta keentay inuu ka duwanaado jilaayaashii aan horay uga soo sheekaynay? haddaan taariikhdiisa guda galno, waxa uu dhashay 1 Febraayo 1956. waxa uuna ku dhashay tuulada la dhaho Jaganta Fera Blem ee gobolka Sete Nepal. waxaa tuuladaasi laga xukumaa degmada Guntar, waxayna hoos timaadaa Andhra Pradesh. waxa uu ka ahaa khudbad jeediye ama dadyowga markii la qabanayo xafladaha dadka makarafoonada ku soo dhaweeya. tuulo la yiraahdo Atile waa magaalo ku taalla waqooyiga Godavari kana tirsan Andhra Pradesh. jilaaga Brahmanandam waxa uu jileenkiisa ka soo bilaabay Telugu cinema ilaa uu ka soo muuqday shirkadaha filimada sameeya ee Bollywoodka iyo Tamilka. haddaba daawada su'aasha miiska saaran maxay tahay labada shay oo uu kaga duwan yahay jilaayaashii aan horay uga soo sheekaynay? Brahmanandam waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu filimada badan dunida, waxaana la dhihi karaa waa shakhsiga koowaad ee filim sameeya ee dunida korkeeda ku nool kii ugu filimada badnaa. Brahmanandam waxa uu sameeyay in ka badan 1,000 filim. sanadku markuu ahaa 2009, dawladda India waxa ay guddoonsiisay abaalmarinta la yiraahdo Padma Shri oo ah abaalmarinta afaraad ee ugu qiimaha badan abaalmarinada ay bixiso dawladda India. waxaa lagu siiyay heerka uu gaarsiiyay fanka iyo jiliinka reer India, iyo inuu sumcadda India kor u qaaday maadaama uu yahay shakhsiga ugu jiliinka badan dunida, shakhsi ka soo jeeda dalkaasi Hindiya. waxaanan marnaba suurtagal ahayn inuu jiro shakhsi hawaysan kara inuu jabiyo rikoorka uu dhigay Brahmanandam Kaniganti. haddaan taariikhdiisa xoogaa horay u sii dhaqaaqno, sanadku markuu ahaa 2007, Brahmanandam waxaa la guddoonsiiyey jaa'isada loo yaqaano Genius World Record oo ah rikoorka u yaala dunida qof filim sameeya inuu yahay qofkii ugu filimada badnaa. xilligaasi jaa'isada uu qaadanayay filimadiisa waxa ay marayeen 867 filim oo uu ku jilay muddo gaaraysa 20 sano gudahood. haatan oo la joogo sanadkan aan ku guda jirno, filimadiisu waxa ay kor u dhaafaan 1,000 iyo wamaazaada. jaa'isooyinka kale ee uu ku guulaystay inta uu filimada sameynayay waxaa ka mid ah Filmfare Award ee Telugu cinema ay bixiyaan. waxa uu qaatay sanadku markuu ahaa 2002. waxaa kaloo uu qaatay jaa'isooyinka Nanda Awards 5 jeer ayuu ku guulaystay, waxayna kala ahaayeen sanadihii 1993, 1994, 1995 iyo 1996 iyo sanadkii 2008. waxaa kaloo uu ku guulaystay jaa'isada loo yaqaano Cinema Awards 6 jeer. waxaa kaloo uu haystaa jaa'isada Sima Awards 3 jeer ayuu ayadana ku guulaystay. waxaa kaloo uu haystaa jaa'isada Hyderabad Film Awards 1 mar, sanadku markuu ahaa 2011. majaajiliistahan Brahmanandam rikoorka uu caalamka ka dhigay ee ah 1,000 filim iyo ka badan
suurtagal ma tahay inuu soo baxo shakhsi kale oo ka jabiya rikoorka u yaala Birmingham? su-aashaas ayaan weydiinaynaa daawadayaasha ku xiran Saxafi Films. daawadayaal, taariikhda koobneyd ee ku saabsanayd ninka ugu filimada badan dunida ahna majaajiliistaha ka soo jeeda dalkaasi Hindiya ee Birmingham Kanaganti, intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa inagoo barnaamijyada kalena ku soo qaadan doona taariikhdiisa kale. jilaagan filimada uu ku jira waxaa kaloo lagu gartaa inay noqdaan filimaan aad u sarreeya, qiimo badanna ka gooya suuqyada filimada lagu soo bandhigo. waxaana ka mid ah filimaantii ugu caansanaa ee uu ku jiray majaajiliistahan. filimadiisa haddaan xoogaa ka soo qaadanno sanadkii 1998 filimkii Bardesi. waxaa kaloo ka mid ah filimaanta uu majaajilada la yaab kale ku soo bandhigay filimka la yidhaahdo Sardaar Gambarsiin oo loogu yeeray Sheekh Kharsiin. waxaa kaloo ka mid ah filimka la yidhaahdo Nayak Julay iyo filimka la yidhaahdo Kick Ass Halwaraj. waxaa kaloo ka mid ah filimada Yamadonga iyo filimka Ahana Balenta oo uu dhigay sanadku markuu ahaa 1987. waxaa kaloo jira filimaanta aad ay dadka ula dhaceen qaar majaajiladiisa, filimka Indra iyo filimka la yidhaahdo Adavi Ramodu oo ahaa filimo Telugu cinema lagu soo bandhigay iyo qaar lagu soo bandhigay Bollywood Industry Films. daawadayaal, haddaan intaa ku soo gabagabeeyay taariikhdii koobnayd Birmingham Kanaganti, daawadayaal ha moogaanina inaad fikirkiina inoo soo gudbisaan iyo cidda aad jeceshihiin inaan taariikhdeeda idiin soo gudbinno. waxaa kaloo intaas idiin dheer inaad tidhaahdaan subscribe Saxafi Films oo aad ka dheehataan taariikhda aktarada Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. inagoo isku duuban oo ah baada Saxafi Filmsna waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Kaquuso qudhayda guurtay
qandha